السلام عليكم kulantiha boondaawadeel idil ahaantiinba waxaad ku soo dhawaataan qaybtii shanaad ee taxanaheennii ayaan daran dhiganahan waxaa qoray Dr. Cabdilaahi Sheekh Xuseen xanti wadaag qaybtana waxay ku bilaamaysaa sidan awjaama iyo Cambaro Digfeer wuxuu u noqday gurigoodii markii 2 toddobaad asli ay ku jirtay cisbitaalka oo la garan waayay waxa ay qabto baa ugu dambeyntii shaybaarku cadeeyay in ay uur 2 bilood iyo badh ah leedahay sidaa darteed aroortii dambe asli oo kaligeed ah ayaa waxa u soo galay dhakhtarkii Jumcaale wuxuuna ku yiri asliyay haddii aad socon karto iigu imow xafiiska baaritaanka asli isla markiiba intay fiidatay bay u tagtay dhakhtarkii waxaana dhex maray su'aalahan iyo jawaabaha soo socda dhakhtarkii baa wuxuu yiri asliyay nin ma leedahay asli waxay ugu jawaabtay maya milihi haddana waxa uu weydiiyey saaxiib ma leedahay asli waxay ugu jawaabtay may saaxiibna milihi dhakhtarkii waxa uu yiri runta ii sheeg dhakhtarka waxba lagama qariye asli waxay ugu jawaabtay adeer wallaahi waa runtay waxba ka qarin maayo nin iyo saaxiib midna milihi dhakhtarkii waraaqihii baarista ayuu soo baxshay wuxuuna ku dhaygagay xaashadihii mid ka mid ah waxaana wajigiisa ku soo joogsaday dhidid aan caadi ahayn markaasuu intuu soo eegay asli ku yiri sidee tahay iminka waan iska roonahay doctore bay ku warcelisay asli jirooyinka sidaad og tahay waa la kala leeyahay sidaa darteed maanta iyo wixii ka dambeeya waxa lagu wareejiyay gynecologia waa qaybta haweenka markii ereygaasi dhakhtarkii ka soo baxay asli waxay xaqiiqsatay in uu ku soo baxay qarracan iyo naxdin darteed baa hadalkii ka soo bixi waayay waxaana indhaheeda ka soo booday ilmo xoog leh oo qoysay garbasaarteedii dhakhtarkii intii u soo dhawaaday asli oo ilmada suuf kaga tiray buu ku yiri asli stage wax kasta oo qofka ku dhacaya waa wax min Allaahi ka yimid waana in loo samraa waxba ma aha soo ma taqaanid ninka iska leh cunuga 3 bilood ku dhow ee aad uurkiisa leedahay asli wax jawaab ah kama soo bixin ee oohintii bay kordhisay muddo nusaa baa dhakhtarku hadba hadal samirsiin iyo dejin ah u soo jeedinayay asli erey qura baa ka soo baxay oo ah doctore ha u sheegin waalidkay iyo dadkoo dhan in aan uur leeyahay dhakhaatiirta waa ka xaalaan in ay sirta dhiibaan ayuu ugu jawaabay dhakhtar Jumcaale wuxuuna u yeeray kalkaaliyihii isagoo faray in asli uu geeyo qaybta cudurrada haweenka haweenkii ku jiray qaybta daawada markii ay maqleen in asli la wareejiyay bay iska fahmeen in ay uur leedahay waxaana muddo yar kadib cusbitaalkii ka gees la ogaaday inay asli cunug aan aabe lahayn sido asli waxaa la dhex keenay haweenkii sadkoodii dhammaaday iyo kuwo uur leh waxayna halkaa kala kulantay su'aalo miirkeedii gaday oo ay ka mid ahaayeen imise bilood ayaa tahay ninkaaga magicii xaggee buu ka shaqeeyaa meeqa sanaan lagu qabay asli joog ma oran waxayna hoosta ka gashay oo isku duubtay go'eedii waxayna gashay fakar ah sidee baad yeeshaa ma istishaa mise waad carartaa oo haddii aan cararo xaggee baan aadayaa yaa raba naag aan ilmo aabe aan lahayn sida alla ciil badanaa waxaas oo dhan canab baa ii keentay alla hoogayey hooyaday iyo aabbahay baan ceeb u soo jiiday erayadaa iyo kuwo la mid ah bay asli iskula hadlaysay haweenay dalmodays ah oo sariirteedu tan asli ku lamaanayd baa la yaabtay isrogroga iyo xasilooni la'aanta asli waxayna garatay in gabadha mushkilad xoog lihi haysato markaasay intay ku soo dhawaatay ku tiri hooyo xaggee lagaa hayaa ma nabar baa kugu taagan eedo waan iska ladanahay baa asli ku jawaabtay markii wax yar ay joogtay asli intay istaagtay bay masqusha gashay
markaasay intay caloosheedii taabatay hoos u tiri, ilaahow dhakhtarka hadalkiisii run ha ka dhigin. waxaana maskaxdeedii ku soo dhacay waxyaabo badan. asli caradii iyo buuqii ku yimid wuxuu u keenay hurdo yari. waxayse inta yar ee ay seexato ku riyoon jirtay iyadoo hooyadeed iyo aabbaheed ay leeyihiin dib ha loogu noqdo baaritaanka gabadhayada, kama suurtowdo arrintaasi. shaybaarkaa qalday, gabadhayadu uur ma sido. waxay kaloo ku riyootay asli iyadoo baadhid labaad lagu ceshay, markaana la ogaaday in naag uur leh kaadideedii iyo teedii la ysku qalday, iyo iyadoo dhakhtarkii Jumcaale ku leeyahay, asliyay raalli iga ahow, gefkaas shaybaarkaa iska lahaayeen. asli waxay kaloo ku riyootay iyadoo dib loogu soo ceshay qaybtii daawada. asli oo ku jirta riyadii ayaa waxaa ka kacshay haweenaydii jaarka la ahayd oo ku tiri, asliyay toos aad qadayside. asli markii ay indhaha kala qaaday bay ogaatay in wixii ay aragtay ay riyo waqti lumis ah ahaayeen. xilligaas waxaa la joogay 1dii duhurnimo. 2da duhurnimona Cambaro iyo Awjaama oo ah waalidkii asli baa sida caadadu ahayd qado u soo qaadayay. asli waxay ka warwaraysaa waalidkeed marka ay yimaadaan qaybta daawooyinka in loo sheegi doono in halkan la i keenay, markaasna ay wax walba ka shifmi doonaan. alla aabbahay isagaa isdilaya ama anigu idilayaa haddii uu i ogaado inaan uur leeyahay. alla ilahe waa inaan cararo oo cisbitaalka ka dhuunto baa asli ku fakaraysay. Awjaama iyo Cambaro sidii caadada u ahaan jirtay duhur walba waxay isu soo raaci jireen cisbitaalka si ay u baantaan asli oo labadooda indhood ay ka jeclaayeen. markii la gaadhay waqtigii qadada ayaa waxaa shaqada ka yimid Awjaama oo lalminaya bacqare iyo laamo ugunti ka buuxaan. wuxuuna afadiisii Cambaro ku yiri, walaal anigu galabta iskaa wax u qabso ayaan u noqonayaa, asli u geeya qadada, khudaartana u miira, aad bay u anfacaysaa, iguna salaan una sheeg in aan caawa oo dhan la joogi doono, iyo in aan akhbaar iyo hadiyad uga hayo walaalkeed Cali Amuur. Awjaama markii qadadii uu afka ka qaaday ayuu intuu kabihiisi iladay jaanta rugay, wuxuuna aaday xaafadda Wadajir oo uu ka socday dhismaha dugsiyada waxbarashada ee khasabka ah. Cambaro kama ay dambeyn Awjaama wax quman, waxayna u soo ambabaxday cisbitaalkii Digfaar. Cambaro iyo Kuusay ayaa iyagoo faraxsan oo qoslaya soo galay qaybtii daawooyinka ee cisbitaalka Digfaar. wax yar kadibna waxay Cambaro dalaq tiri qolkii ay ku ogeyd asli. intaasi kadib maxaa dhacay? la socda wada qaybteena xigta qaybteenan maanta. sheekadana waxaa qoray Dr. Cabdilaahi Sheekh Xuseen Hanti Wadaag.